waxa weeyaan hamadii aynu haynay shanta Soomaaliyeed baa halkaa lagu habsaamiyay taasaa muxuu ahaa dhibaatadeenna haysataa ay tahay taasay tahay in la waajibo United Nations-ka iyo qolyaha magaca Soomaaliya Hargeysa ku degan in naga baxa la yiraahdo oo aan loo ogolaan inay joogaan kolkaasay garan lahaayeen in muxuu ahaa inqilaabkii Xasan Kaydi iyo muxuu ahaa galeen iyo asaaskii muxuu ahaa israaca ay u sameeyeen inaanu midna sharci ahayn oo wixii inaga gaaray ay ahayd dhibaato aynaan mutaysan kolka waxa weeyaan waxaanu ku jiraa fooftaan haba nimankan imika aan leenahay aynu wada hadallada aynu hayna kuwii ina laayay ee Cali Samatar ka midka ahaa waxa la siiyay national burial baa la siiyay waxa kale oo la sameeyay Morgan baa maanta muxuu ahaa tukaraq ciidankii abaabulayay in la dagaalamayay wixii ina gaaray ee dadkaasi inoo geysteen mid qura oo ciqaab lagu mariyay ma jiro qof qura oo loo xidhayna ma jiro kolka dawladnimadeennii waynu helay ee aynu ka dhaadhicinno sababta aynu ula noqonay iyo wixii naga dhaagay aynu caalamka ka dhaadhicin igana raalli ahaada wad wada jamadowdii inaanu antimcadahay waxa idhibaysa inaynu fooftaan habaab ku jirno oo aynu leenahay halkii aynu ka dhaadhicin lahayn caalamka inaynu dawladnimadeennii la soo noqonay oo aynu dawlad ahayn oo waxayna gaadhay la inooga garaabi lahaa haddaynu soo bandhigno kolkaan waxaan qabaa aynu laynka bedelo oo democracy-na ma haysano Soomaali oo dhamina ma haysato tribocracy baa la haystaa inaynu democracy u wareegno ayay tahay kolka aynu ka baxno waxaan aynu ku warwareegayno ee aynu leenahay muxuu ahaa raadintii waynu helay اعتراف aynu ka baxno waxa foreign office-keenu ku warwareegayo aynu ka baxno magacaygu waa Yuusuf Cabdi Xuday kamida ardayda jaamacadda Hargeysa su'aashaan weydiinayo wasiirka waxay tahay adigoo wasiirka arrimaha dibadda muddo dheerna imka 8 sano kamid sanad 8 hore xukuumadda hore inta baad la kawsatay saacadda wasiiroonad intaana wax isbedelo cad aanad dhalin miyaan la oran karin shaqadii aad qaranka u haysay waad ku fashilantay waad ku fashilato inaad cashaan meesha way tahay aniga magacaygu waa Maxamed Xuseen Maxamuud waxaan ka tirsanay
جامعة هرقيسة سؤال شان ويديني واحد ما دام أو في سويسرا إثيوبيا أبي دكتور أحمد وصامين بدن أو سياسة حوارة سرتريسة وصامين أيوه ما دام إلى تري أو 14 سنوات أي أبحث أولاد يهنشبات يكلا قوسي كلا أرقوسي أي هشيين أو رنتي استشرع يهشيين إنه السومال لنا ما الله أوران كرا وح إنه مهمة إنه الصومالية إنه قن عدين الدحدحادلين أينو لا قرتنا ميسك الله فريسنا أينو ويديسنا إنه عالمك أي باش عالمك تراهو سومال لنا وين نجمع الحنانتي خلاصيو حرنمدي ده يا قنص كده سؤال شان قوتين وحويان محا إنكو السومالنا أما إنكو السومالنا نود دي إن أنكونا أنتنو مقديشو وحقاس أنت دحادين وهوا أوليانو حالكي عن كل هنان بروسلس يو بلجيم يو دبي محا نود دي أما مقديشو أنتنو أما إنا صومتك أنو هالقسنو الميدان سؤال هوري ahayd maxaynu ugu qancin weynay Soomaaliya inay tiraahdo caalamka hal ictiraafo Soomaaliland saanka ma waxaan raacin runtii talabaad oo ina la xiriidho ah maxay noo diiday inaynu xamar tagno oo la kulano oo la xaajoono sida abiyaba uu ismarowtay hortaadanka arinka wada hadalka wadahadal bay noo bilaabmay 2012 wadahadalka inagu maynaan xidhin wadahadalka waxaynu u bilownay si waxay naga dhaxeeya aynu si salmiya ku kala baxno iyo wadahadal oo aanu arinku cunfi iyo dagaal iyo colaad aanu naga gelin weli diyaar baynu nahay inaynu ka wada hadalno dabcan qadiyadeenu iyadu waa mid meel inoo taala dadka reer Somaliland 1991 waxay go'aansadeen inay la soo noqdaan xornimadooda waxay u codeeyeen 2001 dastuurkooda oo ku dheeyan yahay madax banaanida Somaliland taa anigu ma bedeli karo madaxweyne ma bedeli karo waa arrin dastuuriya waa arrin dadku goosteen laakiin si muhiimada u gaari lahayn geed dheer iyo geed hoose waynu koreynaa oo ay ka mid tahay wada hadal kaas waa ka dastuurkeenu inooma ogola inaynu xamar ka degno wada hadalka waa la ogol yahay laakiin xamar inuu ka degno taa lama ogola ariga ku saabsan shaqadayda aniga waa runta wax la bilaabay 2010 lixdii sane hore waxaan ahaa wasiirka qorsheynta waxaan igu dhaliili meesha baan u malaynayaa inta wasiirka qorsheynta wax badan baan ka bedelay runtii imika waxaan anigu wasiirka arrimaha dibadda aan ahay 2 sanadood iyo badh waxaan ahay wasiirkii 12aad baan ahay anigu 2 sano joogay aniga shaqaalaha wasaaradda wakiiladeena dibadda shaqo aad iyo aad u badan baan u qabanay runtii intaanu qaban lahayn u malayn maayo in ka badan inay cidi qaban karto aan weli maari qof yidhi waxaas baan qaban lahaayee maad qabanay maxaad u qaban weyday hadday wacyigelin tahay hadday dadaal tahay hadday socdaal tahay runtii umaanaan yaraysanin meel fiicanna waynu maraynaa sanadkan oo kale intii aynu joognay ilaa 300 iyo dheeraad baa laynagu soo hadal qaaday miidiyaha internationalka more than 300 times markaan waxaan qabaa runtii inaynu guul weyn halkaas inooga soo hooyatay weli maynaan gaarin himaladeena waxaanu aad iyo aad u kalsoonahay inaynu gaarayno horta mid baan idin sheegayaa Somaliland jiritaankeeda waa la ictiraafsan yahay waxaa ictiraafsan Soomaaliya ayaa ictiraafsan waxa kale isku haynaa maaha jiritaankeen waa cilaaqaadkeen iyo awoodaheena
iga mid baa tahay iyo kaama mid ihi ee waan madax bannaanay arrinku weyn ee somaliland layskuma hayaba caalamkuna way noo qirsan yihiin way noo yimaadaan madaxweynahay la kulmaan annakayna la kulmaan heshiisyaynu gallaa inaynu jirro oo joogno cid walba way ogtahay marka horta runtii taas waxaan mataqaanaa aan idinku bashaareynaya inta kale nooga hadheena wallaahi anigu aad baan ugu kalsoonahay in layna ictiraafayo keliya waxay u baahan tahay waxaynu u baahan nahay inaynu u dhabar adeegno wixii wanaagsani way daahaan hawlyaro laguma helo waa inaynu u samir waad mahadsanti asalaamu calaykum laba qodob ka kooban aan ku oran lahaa qodobka koowaad isbedel ka socda maanta regionka ama gobol ka socda Horn of Africa albaabo aad u fara badan buu furay waxaan runtii muuqata waxyaabo fara badan inaan maanta la saadaalin karin waxa dhici doona wuxuu ku dambeyn doono halka ay ku beeshaban doonto marka runtii warwar fara badanna uu dhinac socdaa isbedelka maanta regionka socda oo wararkaas runtii wuxuu keeni karaa maxaa la yiraahdaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay arrimaha amniga iyo dhaqaalaha labadaba wadamo badan runtii ku yaala dirbo uu ku abuuray amni maxaa la yiraahdaa dhaqaalahooda warwar wadamo kale waa laga yaabaa inay jiraan runtii marka runtii waxaan odhan karnaa isbedelkaas waxaad moodaa inuu si xawliya ku socdo oo marka la eegayo siyaasadda caalamka ama regionka ama Horn of Africa inuu yahay isbedel runtii aad xawli ku socda kaasuna runtii laga yaabaa inuu aynu u baahanay inagu inaan ka fikiri karno saameynta uu nagu yeelan karo oo runtii wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Somaliland looga baahan yahay bal sida loo saadaalin karo isbedelka siduu saameyn inoogu yeelan karo runtii dhinacyo badan taabanaya qodobka labaad runtii aan taaban kara waxa weeyaan isbedelkan waxaa center waa arrimaha dhaqaalaha waa kow waayo arrimaha ammaanka iyo arrimaha dimuqraadiyadda shirka uu sheegay Somaliland qayb weyn bay ka ahayd arrimaha amniga iyo wax la dimuqraadiyadda imanka Ethiopia runtii arrimaha dimuqraadiyadda ka bilaabeen laakiin arrinta runtii aad moodo imanka regionka ku soo korodhay waa arrimaha dhaqaalaha waxa loo yaqaano regional economy integration ama corridorska faraha badan ee regionka ka socda laga bilaabo berbera ilaa regionka Kondon ama maxaa la yiraahdaa sub-Sahara ka socda ilaa 8 corridor ama ilaa 9 corridor waaweyn ayaa runtii ka socda marka runtii taas su'aasha halka taala waxa weeyaan inagu Somaliland ahaan sidee baan u xaqiijinaynaa waayo arrintan imaka corridorkan ku jirnaa ama arrintan aan bilownay Ethiopia la wadnaa waa runtii waa arrin aad u ballaaran oo regionka meel badan ka saameysay marka qodobka labaad waxa weeyaan sidee baynu arrintan inagu xaqiijinaa maadaama uu jiro isbedelka maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha ee regionka ka socda inagana inagu cusub waa inagu amnigana waynu garanaynay arrimaha dimuqraadiyadda ka shaqeynay laakiin arrintan waa arrin inagu cusub waxa la regional economy integration oo runtii saameynteeda leh qodobka ku soo gabagabeynay waxa weeyaan wasiirku runtii qodobo badan buu ka hadlay arrimaha dibadda inay dadaal badan sameysay laakiin runtii qodobka ay muuqdo waxa weeyaan sidee baynu wax istiraatiijiga oo arrimaha dibadda marka laga hadlayo u sameyn karnaa marka laga yimaado activity fara badan oo wasiiradiisa sheegtay 12 ka horreeyay adigu baa qabanayseen dalal badan la kulanteen shaqo badan qabateen marka la istiraatiijig tusaale ahaan Somaliland waxa laga yaabaa inay 27 sanadood inay tababartay 50,000 oo askari ama 60,000 oo askari oo ciidan oo difaaca laakiin waxa laga yaabaa arrimaha dibadda inaan 100 qof ama 50 qof la tababarin oo macnaha caalamka kula maxaa la yiraahdaa kula muuqaal ama aragti kule oo ayna metela ama wadan gudihiisa jooga oo arrimaha dibadda runtii ka bixin kara image waayo waxaan aragnaa maalin kasta adiga iyo wasiirada ka horeeyay wasiirka arrimaha dibadda bal loo yeeraa qof kale oo aan wali aragno arrimaha dibadda ka hadlay ma jiro oo wasaaradda ku soo biiray 12 sanadood marka runtii waxa la tahay arrimaha istiraatiijiga ayaynu uga baahan tahay inaan uga diyaar garowno arrimaha ka dhacay oo maasanta halka uu sheegay maxamed aan xitaa la sii eegin oo predictable aan u ahayn marka su'aashan anigu weydiinay wasiirka waxa weeyaan halkaan fariin ka bixinin xiriir baa inaga dhexeeyay inaga Ethiopia xiriirka inaga Ethiopia wuxuu ku salaysnaa inta badan waxa inaga dhexeeyo ah amniga iyo arrinka dhaqaalaha ee nagu cusbaa ee gaar ahaan corridorka iyo berbera inteen leg baynu ku shaqaynaynaa inaanu xiriirkaasi noqonin mid tension kulahan hoos u dhicin waayo isbedelkan faraha badan soo kordhay xawaaraha Ethiopia ku dhaqaaqay maaha xawaarahooda hadda uu bilaabay ra'iisul wasaaruhu waa 40 sano shaqo la soo dhisayay baynu arkaynaa midhaheedii imka inta badan dadku waxay moodeen xawaaraha inuu ninkan la yimi laakiin shaqo la soo dhisay 40 sano la geliyay investment baynu hadda midhaheedii arkaynaa innaga xawaarahaasi sidee buu ugu saameynaya xiriirkii ka dhaxeeyay Somaliland iyo Ethiopia taas baan malaynayay crucial imka inoo tahay
gobolkana wuxuu ahaa gobol mar walba xaalad ka jirta muddo dheer Ethiopia Eritrea ay haystay Eritrea Djibouti ay haystay Ethiopia Soomaaliya gashay Amisom baa gashay waxa ku soo biiray Turkiga baa yimid Qatar baa timid xaaladdan dambe ee imika taagan oo carabtii meesha danaynayso gobolkii geeska Afrika la Suudaan Masar China ku jiro reer galbeed ku jiraan fursadaha iyo xaaladaha jiray waa xaaladaha Somaliland oo kale ka faa'iideysan kari lahayd oo isdiidadaasi dhexdooda wax kala soo bixi lahayd laakiin halkaa waxaad moodaa in fursadahaasi horey noo seegeen maantana ma laga yaabaa isbeddelkaas socday xoogga weyn leh inuu ina seego oo ina garab maro marka la eego sida aynaan wasaaradda arrimaha dibadda ahaan u diyaarsaneen sida aynaan qaran ahaan u diyaarsaneen ma laga yaabaa isbeddelkaasi maantana inuu inooga sii daro waxaynu tari hadda mise أنا ودي عن كيجي وحوي وزير كنا كل سؤال ودي وحوي إن هدي ضويلة أي دعان هدي ضويلة دعان وضويلها ضويلتنا أي ضويلها سي إتقاطه سيدي ده ضويلي برجلو دعاء وكره لكن أديك أي كير ضافته دوبر بالليلا ثمها دوبر بالليلا وحوي لا يبقى كده فيه لكن أدوك الله أتكلم كشابتي ما شفتوا ما هي نقد يارسن وحا إمك دقودا دوشنا كل علوم يو إنكم مساكين ربنا اعتراف والله هذا لكن ده أود اعتراف كوين بين لما وضل بين هيشنا ضد له دول له أود النقالة يكوى أمني مله وحيد الله هذا له هاي نقد يارسن وحين يسوينا كل wixii ka soo haro oo de ma garanaysaa cid baa qaybinaysa waxa oo cidaas inuu iska sugaynaa mise waxba inooga diyaarsan taa maxaan sidaa u leeyahay hadda ka hor anigu kaliba qof weyn baan ahayo ilaa 1990kii isbedeladii Somaliland ka socday waan joogay intooda badan waxay noo diyaarsan anigu ma ogeyn run markaynu isu sheegno de imka waxay nahay suuqii ma joogno iminka waxay nahay dad aqoon laho wasiirkuna waxaan ku aqaanaa dulqaad badan iyo aqoon waa qof academic weeye waxba inooma diyaarsanayn waynu iska joognay ictiraafkana dar ilaahay baynu sugaynay haddaba maanta tii waa weyneyd baa inaga duldhacaysa maxaa inoo diyaara maxaa geopoliticalka socda maanta maxaa inooga diyaara geostrategies maxaa inooga diyaara meeshaynu ku dhacno aynu dhacno iyo wax inagu xeeran sidaynu ognahay amni ahaan sidaynu ognahay dhaqaale ahaan sidaynu ognahay xiriirka dawladaha ka dhaxeeya iyo cidda wax qaybinaysa waynu arkaynay tusaale kaasaan kusoo dhammaynaya waynu arkaynay waxa la jilayo mar kaliya uunbaa lawaa bariistayo inankii Abiy Ahmed uunbaa tegay Asmaro oo way is salaameenoo kana uu u yimiyo Abu Dhabi buu ka degay Abu Dhabina bilad baa la guddoonsiiyey de waad arkaysaa waxa sidee wax u socdaan waxaana wax iska dhacaya maaha inaga maxay inooga diyaarsan sidee baynu uga faa'iideysanaa isbeddelka sidee buu inoo saameynayaa iyo wax ku talagala maleena isbeddelka ka socda waxaan qabaa runtii isbeddelku inuu faa'iido inoo leeyahay markaad isdul taagto ka soo qaad dhaqaalaha isbeddelku wuxuu ku salaysan yahay sidii dhaqaalaha loo furfuri lahaa sidii dhaqaalaha loo midayn lahaa amba integration loogu samayn lahaa innaku ganacsi ballaaran baynu la leenahay waddanka Ethiopia laakiin ganacsigaasi dhinaca keliya ayuu ka socdaa hadday qaad noqoto hadday khudrad noqoto hadday xoolo noqoto caano noqoto dhinaca keliya ka socdaa ilaa 700 milyan sanad ganacsatadeenu way ka faa'iideysan karaan 100 milyan ee Ethiopia laakiin systemkanu saamaxayn haddii imka systemka la furfuro fursad buu ina siinaya inuu ka faa'iideysano dabcan isbeddel waliba khatarihiisu leeyahay kacaakufkiisu leeyahay maanta ba wala socota ma marinaya de xaaladda maxay raadayeen kilalka shanaad laakiin guud ahaan
innaka faa'iido inoo leeyahay siyaasadda dhaqaale ee ka mid ah isbeddelka ee geeska africa ta xagga siyaasadda laftigeeda adiga inuu faa'iido inoo leeyahay ida laftigeeda oo innakaba siyaasaddeenu waxay ahayd inaynu ka mid noqonno bahda waddamo xora oo geeskan ku nool oo dhaqaalahoodu uu midaysan yahay nifka 4 milyan baynu nahay geeskan dee waxa ku nool marka la isu geeyo waxaa laga yaabaa maca suudaan dad ku dirto ilaa 200 milyan baa laga yaabaa ilaa uganda dad isku wadarta intaas oo dhan inaynu ka faa'iidaysano ayuu noo suurtagelinaya marka xagga xasada xaggaana waxaa ka jirta faa'iido halkaynu ku naallo ahmiyaddeeda aawadeed anu waxaan is leeyahay waatan haddeertaan ka hadlayahay in la qiro haddii laynoo qiro siyaasiyan iyada laftigeeda waynu ka faa'iidayna furfurkaa yimi dee hogaaminayo axmed abiye dabcan mar kastaba xaaladdeeda waa inaynu u dhega nuglaano waxa maanta joogan waa inaynan wax ku goosan oo aanan ku xisaabtamin waxa berri soo socda waa inaan kasii fikirro haddaanu shirkan ka soo baxay iminka waa mid ku salaysan xaaladaha jira iyo siday noo saameyn karaan hadday siyaasad tahay hadday dhaqaale tahay hadday maxaan idhahdaa nabadgelyo ay tahay iyo sidaan uga gaashaaman lahay marka muddada dhow iyo muddada dheerbaba waxaan is leeyahay wax meel weyn nooga yaalaan innaka himiladeennu waxa weeye inuu ka mid noqonno waddamada xorka ee geeskan ku yaalla ee ka mid ah dhaqaalaha gobolka dadkeennuna si ay ka faa'iidaystaan waxaan u malay intaas way soo koobaysaa baan u malay su-aal ugamaan jawaabin laakiin nuxurkii horta dee way noo diyaarsan yihiin oo sidaan sheegayo iminka ka soo qaad dekedda berbere aynu doonaynu ballaadhino waa ku talagal inaynu ka faa'iidaysano suuqa ballaadhan ee Ethiopia ilaa 30 milyan ilaa population 30 milyan ah amba boqolkiiba 30 populationka Ethiopia dekedda berbere ayaa habi karta oo waraabin karta oo maxay raadeen looga adeegi karaa marka dabcan taas waxay nagu dhiiriyay dekedda ballaadhinteedu waxa weeye waa ku talagalka mataqaanaa si aynu uga faa'iidaysan karno dhaqaalaha kobcaya iyo dadka faraha badan leh ee Ethiopia iyo wixii ka dambeeyaba ka mid ahay dadka xogaalka u ah reformka ballaaran ee wasiirku wado waan uga mahadnaqayaa su-aasheedu waxa weeye maadaama somalilandu aynu wadnaa ay tahay garawshiyo abi shakhsiyadiisa haddii adu aad qiyaasto ma yahay qof calolnugeel u haya somalilandnimada mise sida rumoriska ama xanta u badan tahay waa nin aan happy ku ahayn in somaliland ay sii fogaato oo su-aashu waxa weeye shakhsiyan ninka haddaad yar baadhay amaad og tahay attitude-kiisu waa nooc ma somaliland marka laga hadlayo su-aashaydii jaamac muuse jaamac baa caloosheeda kala baxay waxaan markaa weydiinayaa su-aal kale oo ah dhaqaalahaad ka hadashay oo aad tidhi dhaqaalaha danbaa inoogu jirta Ethiopia 100 milyan laakiin somaliland markaad eegto dhaqaalaha waxa kaga halis badan oo uga muhiimsan waa siyaasadda waayo ictiraaf ma haysano Djibouti aad arkayso waa 200,000 oo qof iyada dhaqaalaha muhiim u ah laakiin innaga waa ictiraafka marka su-aasheedu waxay tahay imaaraadka iyo Ethiopia way wada socdaan innaguna waynu la soconnaa maraykankii waxa la leeyahay hoostu kala socdaa imaaraadkii xafiis keeni dhinaca dhaqaalaha wuxuu u dalacay mid diblomaasiyadeed oo dhinaca siyaasadda waynu soo dhaweynaynaa ma u malaynaysaa marka in imaaraadka iyo Ethiopia aynu ka dhamaysan karno ictiraafkii inay noogu dhawaaqaan kaasaa inooga muhiimsan baan filayaa dhinaca dhaqaalaha wasaaradda arrimaha dibaddu run ahaantii waa labada baad ee ku duusho dalkeena Somaliland haddana halka xaaladda siyaasaddu ay marayso siyaasadda dalkeena halka ay marayso maanta waynu wada arkaynaa xujaajta dalkeena maanta waxa hogaaminaya waa Soomaaliya hawadeena waxa laga maamulaa waa Soomaaliya haddana dalkeena waxaan ku bixinaa lacago fara badan si aynu ictiraaf u helno lacagaha faraha badan la aynu bixinayno waxba haddana kuma helno haddaba miyaanay habboonayn lacagaha faraha badan la aynu bixinayno inaynu gelino waxbarashada dalkeena oo liidata
inaynu gelino caafimaadka dalkeena inaynu gelino wax soo saarka waayo waddankeenu wax soo saar ma laha maadaama lahayn wax soo saarna waddan aan wax soo saar lahayna ictiraaf siduu ku hela way adag tahay dhalinyaradana waxa lumisay waa tahriib miyaan ahayn inaynu shaqo abuur isugu samayno wasiirka markii laga bedelay wasaaradda qorsheynta nagu saaxiib baan u tegay waxaan ku yidhi wallahi aan halkii hore kula jeclaa waayo buu yidhi waxaan ku yidhi dee lama ictiraafsano halkanaad kaga waxtar badan tahay dad aan la ictiraafsanin wasaaraddooda arrimaha dibaddu muuqaalkeedu aada buu u yaryahay waxa su-aashaan weydiinaya waxa weeye saamaynta marka laga hadlayo abbey wuxuu tegey xamar buu tegey markuu soo noqday baarlamaanku ka hadlay wuxuu yidhi waynu midoobaynaa innagii soomaaliya suuragalna maaha inagoo 100 milyan aynu dekad la-aano soomaaliya oo 12 milyanina badda intaa la eeg ee aanay markab kala soo degi karayn inay keligeed haysato dee soomaalidu sheegaya in ka mid baynu nahay mise wax gooniya bay si gooniya inoo arkaa waxay la tahay inaynu albaabo badan oo ka duwan kuwa hore aynu garaacno waa maxay aragtida Dr. Abiy ee ku aadan Somaliland horta weli meel lama waranin haddaynu Ethiopia nahay amba dowladeedu way bedeshay siyaasadii aanu ka lahayn Somaliland meel ku muuran dabcan aragtidiisu waxa weeye in gobolka oo dhan uu mataqaanaa iskaashi sameeyo oo isu yimaado oo integration economic la sameeyo weeye laakiin inaa taas maynu ka mid nahay wax muujinaya in wax weyn uu iska bedeleen oo runtii anigu maan dareemin dabcan raggii hore taariikh baynu wada lahayn oo isaga aynaan lahayn anu markaan la kulmay wasiirul khaarijiya Ethiopia bishiina soo dhaaftay wuxuu yidhi wax iska bedelay annaka siyaasadeedii ku saabsanayd Somaliland ma jirto Abiy waa nin dabcan ra'iisul wasaare laakiin waxaa jira institutions waddanku wuxuu ku shaqeeyaa institutions buu ku shaqeeyaa marka saaxiibtinimadeena iyo cilaaqaadkeena waxaa mid ku salaysan dano dan dhaqaale dan siyaasadeed dan nabadgelyo danihiina way yaalaan meesha mid kastoo yimaadaana dabcan dee wuu tixgelinaya danahaas taa intaasaan kaga baxaya arrin ku saabsan ma laga yaabaa in Ethiopia iyo Imaaraadku oo imika aynu saaxiibo nahay inay inoogu dhawaaqaan horta wax fara badan mowqifka Ethiopia waxa anagu noqon mayna ka hore sababo badan oo jira laakiin ka labaad baan noqonaynaa labadaba waa weydiisanay cid kasta oo aynu hor fadhiisano waynu weydiisanaa ictiraafkeena xaq baynu ugu leenahay Ethiopia xaq baynu ugu leenahay Imaaraadka mabaha wax ma taqaanaa leenahay ihsaan hana loo siiyo waa waxaynu leenahay inagu in la ictiraafo marka haruna wuu weydiinay dibna wuu weydiinayna insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay dhawaan bayna ictiraafaan arrinka ku saabsan lacagta badan ee inaga baxda arrimaha dibadda iyo inakaan waxba ka haynin iyo maynu lacagta ku isticmaalo horumarkeena horta inta badan runtii waxaan ka yara xumahay dareenka ka muuqda weliba dhalinyarada qaar ee aad moodo quusta ku dhow waa nasiib daro waar meel wanaagsan baynu maraynaa ha quusanina Somaliland waa mustaqbalkiina idinkaa leh xitaa haddii xaaladdu inagu xun tahay maxaan idhaahdaa niyadiina adkeeya have to be optimist meel xun mari mayno Somaliland meel wanaagsan bay maraysa ku celceliya intaa iska dilina niyadda xagga lacagta la siiyo arrimaha dibadda sanadkan miisaaniyadda waa ka 100% 1.8
boqolkiiba 2 maaha xitaa intaas ma badnaan miya badanta intaas ma badnaan malaynaya I think si wanaagsanna waxbaynu ugu qabanaa qaranka lacagta yar ee loogu talagalay waxa laga yaabaa in waxbay iska xistiin laakiin hawlaheena badan marka intaas baa runtii aad moodeen hadda loo awooday waxaasan jecelahay mustaqbalka in runtii si fiican aynu maalgashano iska daa waxaynu ka dhino inaynu laba laabno amba saddex laba laabno ayaan runtii qabaano arrinka ku saabsan maartay maxaynu albaab badan u garaaci weyn waa sax weyn waynu albaab kasta garaacno mid Afrikaan mid Yurub mid Asian maxaa yiraahdaa mid Shuuci mid Qarbi albaab walba waynu garaacnay xaraan inaga ma waanaynu garaacnaa laakiin laga yaabo inaad arkin inaga mushkiladeena waxa weey dadkeena waxay doonayaan cid kasta aad aragto wax kasta ay istidaahdaan inaad maalinta dambe soo hortaagto microphone waa tiraahdo hebel baan arnay dawlad hebel baan arrinka ka wada xaajoonay waxaasaynu ku heshiinay hadal siyaasaddu saama inaanad ka hadlin siyaasadda ka mid tahay waxyaabo badan baa inaga lumay soo hortaaga maalin walba inuu soo hortaagno microphone-ka waa inuu ka hadlo waxyaabo hoos ahaaneed aynu kula hadalno cid kale marka waxa loo baahan yahay doon serial ayaa loo baahan yahay laakiin waa kula qaba waana la wadaa insha Allah inuu albaab kasta garaacno aad maasantii waxaan doonayaa inaan weydiiyo siyaasadda Somaliland taqriiban waxaan ku dhex jiraa almost 9 sanadood marka la imaado arrinka ictiraafka waxaan arkaa in badan Somaliland inay ictiraafka saartay investment iyo maalgashi marka sababta Somaliland ay u adeegsan weyday baasaboorka Somaliland wasiilad ictiraaf maxay u dhici weyday waayo waxaan jiraa wafdiyo fara badan markay ka soo baxayaan wadanka ay wadamada dibadda imanayaan yani waxay wataan baasabooro Djibouti ama Ethiopian ama European de marka wadan aad ku tagtid baasaboorka adigoo Somalilander ah systemkii lagu soo dhaweeyay aad Somalilander tahay baasaboorkii aad wadatid uu yahay British ama Finnish ama Ethiopian labadaasi ma isqabanayaan marka aniga aragtidayda ahaan waxaan jeclaan lahaa dawladda Somaliland inay xoogga saarto baasaboorkeena inuu noqdo wasiilada koobaad ee ictiraafka Somaliland ee dadku nagu bartaan waxaanu nahay iyo dadkaanu nahay wad mahadsantahay wasiir waa maxamed daahir dhigta jaacada Hargeysa kulliyadda sharciga waxaan weydiin lahaa wasiirka Dr. Abiy markii uu tagay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya iyo dalal badan oo geeska Afrika wuxuu kala hadlay inuu dekedahooga ay wax badan ka isticmaali doonaan haddaba inaga oo markii horeba dekedeena Berbera aynu ogeyn inay 19% ay Ethiopia lahayd sideen uga faa'iideysan karnaa Somaliland xuduudaheeda oo ku dhow magaalooyinka ugu dadka badan leh Ethiopia oo jigjiga iyo diradhaba iyo Addis Ababa iyo magaalooyinka kale ay Oromiya degan tahay taas waa hal su'aal oo sideen uga faa'iideysan karnaa location-ka aynu uga dhownahay magaalooyinka waaweyn su'aashayda labaad waxa weeyaan Soomaaliya iyo Ethiopia markii ay wada hadlayeen waxa ay Ethiopia u sheegtay Soomaaliya in ay 4 dekedood maalgelin doonto 4 dekedood dad baa qaba inay mid ka mid ahayd dekedeena oo ay markii horeba percentage ay Ethiopia ku lahayd dadka aragtida qaba wasiir maxaad uga jawaabaysaa inaanay dekedeenaasi ahayn 4 wasaaradood 4 dekedood ee ay markii horeba Ethiopia inaga teena maalgelinaysay su'aasheedu waxay tahay 1980s buu Ingiriisku qabsaday dalkan waynu dagaalanay xornimadii waynu helnay markaynu dagaalamanay ismaynaan weydiin war haddaynu xornimada helo maxaa qorshe ka dambeeya waynu qaadno xamar baynu geynay inay khalad ahayd baynu ogaanay bilaa qorshihii haddana khaladkii si aan u saxno 30 sano aan dagaalamayna waynu dagaalanay markaynu dagaalamayna haddana haddaynu dalkii dib ugu soo noqono maxaa qorshaha la isma odhan waa la soo galay
bilaa qorshaynu ku soo gallo maynu goosanaa mise xamar halkan aan uga talinaa laysma odhan maantaynu taaganahay maanta haddii ictiraaf la waayo dalka maxaa u qorshaa haddii ictiraaf la helona ictiraafka la helaa dhibaatuu keenaa sidaas suudaan oo kale waayo xuduudihii baa soo xidhmaya dimuqraadiyadda maraykan xataa inaan contextkeena waafajinaa muhiima maxaa qorshaha haddii ictiraaf la helo oo inooga qorshaha ictiraafku dhibaatooyinku keeni doono iyo haddii ictiraaf la waayo maxaa qorshaha su-aasha aan weydiinayo wasiirku waxa weeyaan markaynu eegno Ethiopia waxaa jira waxyaabo ay aaminsan yihiin oo taariikhdooda ku qoran in badanna reer galbeedku ay ku taageereen 1889 ilaa 1955 waxaa dalka Ethiopia la siiyey meelo badan oo dad aan iyaga ahayn ay lahaayeen Soomaalina ay lahaayeen herer baa la siiyey Ogaadeniya la siiyey wadanka ama deegaanka hawd la yiraahdo oo dadkeenu badanka ay degan yihiin baa la siiyey haddaba su-aashaydu waxay tahay ma tahay ama ma fili karnaa isbedeladan maanta ka dhacaya Ethiopia iyo heshiisyadan socda inay dabada ku hayaan arrin in fara badan diblomaasiyadda caalamiyahaana la hadal hayo ah in ay wado Ethiopia salbalaars ay ka dhawaajisay 1963 midowgii Afrika uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaarahoodu yidhi waxay Ethiopia xuduudeedu ay ahayd ilaa badda cas ilaa badweynta Hindiya waqti aanay jirin dowlad Soomaaliya la yiraahdo marka ma u malayn karnaa maanta intaas qorshahaasi uu socdo Yurubiyaanka iyo Carabtan taxaalufka samaysayna ay inoo loogayaan oo ay inoo doonayaan inay ina bireeyaan Ethiopia maxaynu u isticmaali weynay baasaboorkeena Somaliland markaynu dhoofayno horta baasaboorkeena dabcan wuxuu ku xidhan yahay ictiraafkeena innaka laynama ictiraafsana weli yani markaan leelaynama walayna ictiraafsana laakiin aqoonsi buuxa weli ma haysano markaad baasaboorkaaga dhiibto ee sidaa loo iskaangareeyo dee system baa jira baasabooradu ma ka soo baxayo sidaa ay tahay waddamaa jira aqbala oo si cad u aqbala baasaboorkeena ka shicib weynaha ka serviska ka diblomaadka intaba waddanka Djibouti waynu ku wada galaa waddanka Ethiopia waynu ku galaa ka Kenya laftigiisa imika waa lagu galaa inkastoo ay tahay mataqaani laga shaqeeyo marka hore anu berdhowto dhowr waddan baan soo maray oo galbeedka kayga cas baan watay waa la ii shaambadeeyey laakiin mararka qaarkood waad la kulmaysaa dabcan dhib baa kaa qabsanaysa waa lama aqoonsana marka dabcan waa sax inaynu dhiiri gelino waddan kasta aan ku tegi karro aan ku dhiiri gelino mar kastoo aynu visa aynu dalbanayno aan keena horraysiino horta marka hore ilaa dee laynoo diido haddii lanagu siiyo isaga aan ku dhoofno aan dhiiri gelino aan isticmaal waa sax weeye laakiin haddana waa aad ogaato limitationska taagan dhibaatooyinka taagan oo ah sidaan innaka weli aqoonsi buuxa laynoo siinin ayaan baasaboorkan weli aqoonsi buuxa laynoo siinin sidaynu uga faa'iidaysanaa magaalooyinkan waaweyn ee Ethiopia ee dadka badani ku nool yahay ee dekedeena u dhow horta taas baa keentay ballaadhinta dekedda laftigeeda shirkaddan DP World umay imanin una ballaadhin mayso dekedeena sida ay noogu adeegtay innaka tan yar baynu ku filan sanadkii waxaa ka soo dega ilaa 1 milyan oo tan baa ka soo dega oo innaka iyo dabcan inna way neera dhaaftaa laakiin inta badan innaka isticmaala iyada inagu filan laakiin waxaa loo ballaadhinayaa waxa weeye sidii looga faa'iidaysan lahaa populationka faraha badan leh ee Ethiopia xitaa ilaa Uganda wadamada aan lahayn badda oo dhan marka waynu ka faa'iidaysanaa waynu weel samaysanayna si aynu uga faa'iidaysan lahayn afartii dekedood abiya uu kala soo heshiiyey Soomaaliya miyay ku jirtay dekedda berbera maya dekedda berbera laga hadli maayo lagana heshiin maayo dowladan Somaliland ahayn
waddankan dee waa waddan la yidhahdo Somaliland Republic ya jamhuuriyadda Somaliland berberi waxay ku taallaa jamhuuriyadda Somaliland kuma taallo Soomaaliya Ethiopiana kalama hadli karto cid kalena kalama hadli karto laakiin waxay kala hadli karaan dee dekooda faraha badan leh Kismaayo Baraawe Marka Muqdisho Hobyo Boosaaso dekada badan bay leeyihiin xataa ku afriyay waa maxay qorshaheenu haddii layna ictiraafi waayo marka waxa weeye plan B-geenu muxuu yahay soo ma there is no plan B plan B ma jiro waa layna ictiraafayaa ka noqon mayno ya haddii layna ictiraafo maxaa markaa inoo qorshaa horta inaku South Sudan oo kale manihi South Sudan waa la socotaano dee dhowaan bay xornimada heshay dhibaatooyin badan baa jiray petroolkii ay ka heshayna waabuu sii mashkalad bisna uu sii noqday inaku waxaynu jiraa 28 sano shalay dhalad manihi dhibkeennii waa soo dhammaysanay mid sokeeye mid shisheeye dimuqraadiyad si walba woo jiribnay waxaynu nahay majuur baynu nahay waynu bislaanay haddii maanta aynu helo ictiraaf wax inoo zaayida mooyaan waxba inaga dhicin maayo dadka inoo diidan ictiraaf ayaa ku galgasha had iyo jeer ma laga yaabaa in mataqaana marka haddii la ictiraafo uu furo albaab cusub oo wadamo fara badan saasoo kale ay u kala burburaan ma laga yaabaa inay isdishaanba bas ay isu dilayaan maxaa yidhahday qolada South Sudan oo waxyaabaha laynoo soo qaaday weyn laakiin isdili mayno South Sudan mani marka taa waxaan qabaa in diyaar inaynu nahay ictiraaf arrinka Ethiopia hami bay lahayd inay waddankan ay qabsato marka waxaan la wadwadaa ma laga yaabaa inuu hamiga ku salaysan yahay in la ina qabsado anu malayn maayo AU-da charter bay leedahay charterku wuxuu qeexayaa xuduudaha wadamadu qeexaya caalamkana maanta ma ogola in waddan ku soo duulo maxaa yidhahdaa taa ma ogola inana ma ogolin waddanna lama qabsan karaba baleega Afghanistan waa waddan yar oo saboola cid walba way isugu tagtay gidi way ka lugeeyeen casrigan maanta jooga dagaaladan la yidhahdo asymmetrical yaan sinayna frontalka ahayn laguma kala badiyo marka u malayn maayo in cid soo haweysan doonto Somaliland maxaa bay sidee ku falayaanba diyaar baynu u nahay inaan iskaashanaba ka hor amaasanti waxaa tiri wasaaraddan arrimaha dibadda waxaa soo maray 12 wasiir wasiirkii 12aad maray wasiir kastaaba wuxuu noo sheegay in rajul baan ku soo signay 27 sanadood mid kastaaba positive ma noo sheega bal adoo wax negative ma noo sheegi kartaa oo Somaliland ka hor yimid waxaynu ogsoonahay exportka iyo importka dawladda Ethiopia in 90% uu maro Djibouti 10% Port Sudan maro haddii ay heshay Eritrea dadyowga Ethiopia waxaynu ogsoonahay in aanay meel loo dhiga aanay jiri karayn inay Eritrea kala soo degto haddii insaxaab ay ka samayso ama ay ka noqoto heshiiskii DPO iyo Somaliland maxaa Somaliland uga meel yeelay ma se aaminsan tahay wasiir in Somaliland maxbuus iyo dhibano tahay xulafada UAE iyo Sacuudiga hogaaminayo qoladii DP weelay nala joogtay caawa Eritrea joogan guddigoodii farsamadu musawacna 2 wiig gudood ayay Ethiopia ku isticmaali doontaa hore waxaynu inoogu leeshiye 30% alaabta Ethiopia u soo degtaa in berbera laga soo ragi doono DP weela ay dekadana inoo ballaarin doonto wadana inoo dhisi doonto 15 milyan tan ee Ethiopia export iyo import ka samaysana 30% ama 40 aynu heli doono caawa waxaan weydiinayaa wasiirka heshiiska iyo kootada Ethiopia intact ma yahay mise waxba isbedelay adiga raayigaaga qoladii Djibouti ee cadawgayno ahayd anigu oran maayo waa saaxiibe deyn bay la circirayaan dee ictiraafka ma inaga iibinayaan deynka aynu la bixin raayigaaga
runtii hadal yar baa kadib tigaa mar wasiirku yidhi wuxuu yidhi maraan la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia wuxuu ii sheegay in xiriirka anaga Ethiopia uu weli halkiisa yahay wasiir waxaan qarayaa inuu wasiirkaasi horta been kuu sheegay siduu kugu sheegay inuu kuu sheegay su'aashan aan ku weydiinaya anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii Somaliland ee 8 sano ka hor tegay dalka Ethiopia waqtigaa waxaan ku tegay shahaadada Somaliland anoo arday ka ahaa jaamacadda Hargeysa runtii farxad weyn way ahayd waayo waan kaga socnaa ardayda kale reer Somaliland laakiin waxaan qarayaa 4 sano ugu dambeeyay inaan jirin arday reer Somaliland ah oo shahaadada Somaliland ku galaan waxay ardayda Somaliland ku galaan inta Ethiopia tagaa jijiga ay sameeyaan shahaadada Ethiopian kadibna saas jaamacadaha Ethiopia ku galaan halka waxa fadhidanada markhaati bay ka tahay waxay ahayd xogayii safiirkii aadan xuluule ee 2012 arrinka kale waxa weeyeen taasi kulli siyaasad xumo ku timid baan inuu aaminsanahay oo haddii xiriirku uu fiicnaan lahaa arinku saamu taagnaadeen tan labaad waxay tahay ardaydii reer Somaliland ee tagtay 2008 iyo 2012 inta u dhaxeeyay waxay nasiib u heleen inay helaan kaad deganaansho ah oo ay wadanka ku joogaan intay wax baranayaan laakiin 2012 ilaa 2008 imika arday qof kaliya oo reer Somaliland oo galay oo haysta kaadkaas ma jiro waxay ku wada joogaan mutawaqayaal iyo baasaboorro Ethiopian marka waxaan aaminsanahay anigu siyaasadan la leeyahay Ethiopia iyo Somaliland halkeedii ma dhaafsin waxa weeyaan siyaasadda reer Somaliland siyaasiyiinta ku dhaqmaya bakeentayna marka fashil badan ku yimaado siyaasadda dhinaca waxbarashada Somaliland marka koobaad xiriirka arrimaha dibaddu maaha halka ay ka unkanto midhaha laga sugayo qaranka jamhuuriyadda Somaliland waa muraayad ama albaabkii aynu ka gaadhaynay adduunyada kale aynu gogaysiinaynay danaheena iyo doonista dalka horumarka iyo hanaanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ma aha meel laga sugayo inay intay midho beerto keento wadanka waa muraayadii iyo albaabkii isku keen xidhayay marka labaad waa maxay shakigan iyo cabsidan Ethiopia prime ministerkeedu uu booqan jiray wadamada jaarka mar walba xiriirna way lahaay miyaynu ilowna inaanay jirin wadamadani xiriir hore lahaayeen muddo badan soo jiray no problem waa kii oo kale marka saddexaad arrinta wiilkaasi ka dhawaajiyay qarankan jamhuuriyadda Somaliland xiriir dhow oo qoto dheer baynu leenahay Ethiopia qof kasta uu og yahay baasaboorkeena lagu tagaa arday baa joogta scholarship bayna siiyaan mar walba arday badan baa ka soo baxday oo markhaatiya comment baan bixinayo maaha su'aal marka waxaan leeyahay runtii qofka ay ku xiran tahay doorashadiisa haddii uu ka cabsanayo dhaqaalaha oo ku kordhi lahaa way dhici kartaa inuu doorto inuu Ethiopian ku doonto waayo Somaliland waxa laga yaabaa inuu lacagta lagu kordhiyo wasiir Saacid Cali Shire waxaan hal su'aal aan weydiin lahaa waliba su'aashan weydiinayo isaga laftigiisa ka dhaxlay hadalkiisa wuxuu yiri miisaaniyada wax noogu jira boqolkiiba 2% ma gaadhaysa buuri malaha de looguma talagelin inaan aqoonsi raadino mar walba wadanku aqoonsi raadinayo waxa weeyaan inuu miisaaniyadiisa arrimaha dibadeed la xoojiyo marka arrinka dareen ahaan xukuumadana waa xukuumad cusub dareen ahaan miisaaniyada aanan 2% gaadhay way aad ugu qanacdeen haddaa diyaar u tihiin inaan wadankeena aan la aqoonsan aad baad mahadsantahay waa aragnaa inaan aad wasiirka ugu baahannahay su'aalaha aynu iminka weydiinay ayaynu wasiirka oranaynaa bal inoogu soo gabagabee mala waxay fiicnaan lahayd shirarkan oo kale in la badiyo tiradooda si looga wada bogto arrinka ku saabsan wasiirada arrimaha dibadda oo mar walba yidhaahdaa guul baynu gaadhnay waxaana mataqaanaa siduu ku yidhi aan laga haynin adig wax badan baynu ka haynaa halkii aynu joognay 1991 miyaynu joognaa maanta horta 1991 intee baa jirtay inteena ka joogtay gacantaaga waa ka dambayseen haddaa ogaan lahaydeen halkaynu ka soo qaadnay maydaan cabateen meel fog baynu ka nimi meel wanaagsanna waynu maraynaa حتى هذين المرينين ما واحد شعلان الله إذا إنه ورحنا نسينه يسوي وناكس ولا جوب أبيضات طبعا ورنا يسوي وين نسينه وين اللي يريق إنه نيدينا نسمه هدي أنا ما بدنا هنا وين نتشبني حمل إنه ما يلا لين اعترافي معي حدرين كأنه نقول له
marka horta waa inaynu idinkuna isdhiirigeliya fadlan arrin ku saabsan haddii Ethiopia saamigii ay nala gashay dekada berbera ay ka noqoto maxaa yacni markaa inoo talaa wato malayn maayo inay ka noqonayso oo hadda ma arko wax astaamoo sheegaya inay ka noqonayso waddanka Ethiopia waa waddan population badan populationkiisuna xawli sareeyo uu ku koraayo dhaqaalihiisuna uu koraayo aada u koraayo labadaas shay baa isgalay dad koraaya iyo dhaqaale koraaya 2050 waxaa la filayaa populationkiisu inuu gaadho 250 milyan 250 milyan 25 sannadood mar buu populationku laba laabmaa 250 milyan waxay u baahnaanayaan 10 dekedood deked kaliya maaha waddan kaliyana maaha marka runtii anigu ma arko waxay noo ziyaada mooyaane wax inaga dhacaya una malayn maayaa inay ka baxayaan arrinka ku saabsan 30% dabcan dee weelkeedii waynanu lahaano hadda weelkeedii malihin iminka dekedeenna waxaa ka soo dega sanadkii 100,000 oo container Djibouti waxaa ka dega 1 milyan oo container baa ka dega waynaga weynti marka waxaan u baahanahay inaynu u weel samaysano si aynu 30% aynu u gaadhno insha Allah waynu gaadhi doonaa ardayda reer Somaliland ee dhibku ka haysto sharciyada Ethiopia arrinkaas wax badan buu soo noqday safaaradeennuna way ka hawl gashay marar fara badan mushkiladda ugu weyn ee ka hor timaada waxa weeye waxa lagu yiraahdaa dadkan aad u cabanayso aad u dacwoonayso Somaliland risba maaha mustawaqi haystaan way Ethiopian horta marka mustawaqa qaadateen ardayga markuu mustawaqa qaatay wuxuu ka baxay xaydaamkii Somaliland buu ka baxay marka laakiin dhibku wuu jiraa oo weli wuu jiraa insha Allah safaaraduna waa lagala soo xiriiray waanan ka shaqeynaynaa waddanka Ethiopia runtii waa waddan aynu xiriir weyn leenahay tashiilaad badan inoo sameeya runtii tashiilaadka inoo sameeyana wax ku kordhay mooyaane wax ka dhacay ma jiraan arrinka ku saabsan safaaradaheena gobolka oo berigii hore aada u shaqayn jiray iminkana shaqadooda hoos u dhacday anigu taa malayn maayo waa maxay miqyaaska maxaad ku halbeegu muxuu yahay maxaad ku qiyaasaysaa markii hore halkaas u joogay imkana halkan u joogay waxaan kuu sheegayaa safaaradaheena gobolku maantay ugu ballaaran yihiin oo ugu budget badan yihiin midkiina ma tegay Kenya Nairobi midkiina ma tegay waa safaarad ma soo arkay waa safaarad weyn runtii aad iyo aad u qurux badan Ethiopia ma midkiina ma tegay waa safaarad weyn safaaradan loo dhaqmaa Djibouti waa saasoo kale runtii waanay shaqeeyaan aad bay u shaqeeyaan dabcan ictiraaf baynu doonaynaa dee naku inay keenaan inay yidhaahdaan ictiraaf baynu ka siinaa Djibouti ictiraaf baynu ka siinaa Ethiopia ictiraaf baynu ka siinaa Kenya weli halkaa ma joogno laakiin waa safar baynu aynu gelaynaa maxaa la ictiraaf wax soo boodaya wax cirka ka imanaya maaha marka xaqiiqda jirtaa waxa weeye intaasoo dowladoodba baasaboorkeena lagu galaa waa guul shalay maahayn baa laga yaaba markaan waxaan qabaa runtii wasaaradahaasi safaaradahaasi inkastoo dhaqaalahoodu waan kordhinay laakiin halkii la doonayo weli ma joogo insha Allah si fiicanna waa u shaqeeyaan waana kasii badin doonaa aad baa mahadsantihiin qodobka ku saabsan miisaaniyadda miisaaniyadda loogu talagalay amba loo qoondeeyey arrimaha dibadda way nagu yartay duruufo badan baa inagu xeeran oo adag arrinka nabaddu waa arrin runtii aad iyo aad muhiim inoogu ah khayraad badanna inaga qaatay laakiin sida ay tahay waxaanad iska goynay kaama go-aan waynu u baahanay runtii inaynu u goyno wax ku filan arrimaha dibadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu